waxaan ku qoslayaa su'aalaha xanuunka badan kugu soo socda sidaad uga jawaabi lahayd ayaa ii soo sawirmatado suukidaas caasimada lagu dhacawato sidaan qiyaasay awr cambada laamiga u dhow gaarigaas taagan oo dadka waaweynka cajiibka ay qaadanayaan marka gaarigaas waxaan leeyahay dadka ka masiirsan oo hinaasaha nafta ka qaaday adeer yaalo iska quusta durdur way tirtaa ma laga qaban karo fikradan in dadka laga waalo adiga gulfaan miyaa iska leh mase agaasimaha bariga afrika xasan toob ayaa iska leh caafimaad ma la dhihi karaa fanaan baa dhar jeexjeexan u geliseen qashinkaa dhex geyseen fanaan ayaad dameer saarteen fanaan ayaad u geliseen nigis gabar ayaad suwaal u geliseen kuwaas maxaa lagu tilmaami karaa halkani waa Soodi Official oo ku suurtagelinaya waxyaabo aadan ku fikraynin inaad markhaati ka noqoto xaruntiisu waa magaalada Paris ee dalka Faransa السلام عليكم halkan waa Soodi Official haddii aad ku cusub tahay please subscribe noo saar furo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koobaad aad iyo aad ay u mahadsan tahay intaas haddii aad samaysay waxaad ka mid noqotay si naxariis leh dadka ku xiran Soodi Official aad iyo aad u mahadsan tahay I love my fans waan jecelahay dadka taageera intaas ka bacdi ciwaanka sheekada ama barnaamijkan degdeg ah ayaa wuxuu yahay intaas ka bacdi ayaa waxaan rabaa inaan idin la wadaago waraysi aan doonayo inaan la yeesho gudoomiyaha guud ee Durdur Media ayaa waxaan rabaa inaan waraysi la yeesho kana waraysto arrimo xasaasi ah hadda ayaan ka wici doonaa qadka WhatsApp-ka aad iyo aad u mahadsantihiin la socodka la socotiin muuqaalkeena waa yahay allo assalaamu calaykum wa calaykum assalaam Soodi adiga iyo dhammaan mujtamaca ku xiran Soodi Official qeybaheeda kala duwan haddii taadanka page Facebook-ga ama YouTube-ka waxaan leeyahay meel walba ay asxaabtaada naga daawanayso waqtigii waayaheedii wacnaada waana kaga mahadcelinayaa waqtiga aad bulshada u adeegayso iyo qudheeda waqtiga aad siisay waan dhawahay gudoomiye wayahay aad iyo aad u mahadsan tahay haddii aan maqlo gulfaan qosolaad ugu soo dhacdo maxamed muuse maxamed gulfaan waxaan ku leeyahay maanta waxaa ku qoslaya haddaad ogaan lahayd igama daba qosli lahayd waa gartay waxaan ku qoslayaa su'aalaha xanuunka badan kugu soo socda sidaad uga jawaabi lahayd ayaa ii soo sawirmatado سودا ديارسين فالعلن كستو ديار يا ونحني هيا دانا احنا دردر ميدي وهي دردر ميدي قدوميد جود محمد موسى القلفان سؤال شكو بعد waxay tahay maalmaha baraha bulshada waxaan ku arkay odaga xasan toobahay oo gaari cad la faniinayo sababta ka dambeysay gaarigaas in la guddoonsiyo Durdur Media bal aniga dadweynaha naga dabageey وما سنتها السعودية دت كلا دونا رنتي ساسو كانت نويل سو حرينا أما يكتب لها هذا أنا ما دت كلا شعبها هذا أنا ويدينا يدردر باهيا كوجين هو شركة ظروف لا تعالي زي سوتك كانت محيطة هاي سيسوكيدا عاصمة لو دعوته سيدان قياسا يعني حسنتها من رنتي واسمع قشين كل يتنبو كاغا ورمي دردر waa shirkad runtii ama waa YouTube inta badan dadka Soomaaliyeed ay aad u xiiseeyaan kamaska ama xarunta ugu weyn oo ku leeyahay Muqdisho dad kala duwan oo Durdur Media taageerana ayaa ku nool dunida tacaaladeeda sidaa darteed way sahlanaatay in wax walba aan dunida kaga baahanahay haddii tahay camera haddii tahay waxyaabo inta ka balaaranbo in shirkadda la soo gaarsiiyo maadaama dad kala duwan iyo shirkado kala duwan oo wax soo saarka dalkeena aan saaxiib la nahay haddii dulucda shirkadeena aan guud galo gawaarigaas cajiibka ee waxa laga keenay Japan Tokyo magaalada la yiraahdo ayaa laga keenay magaalada Muqdisho oo ku yaryahay qiyaasaya oo qof in laba qof inuu wadin karno oo maleynaya marka laga tago shirkadda Durdur Media hadda loo iibiyay waxa inaga saaciday runtii oo halkan kaga mahadnaqayaa Mr. Gill oo hogaamiyaha guud mas'uulka maxaan ku dhahay shirkad ku taala Turkiga shirkadaas oo markii Soomaaliya la joogan la yiraahdo maxaan ku dhahay Miraaj oo wakiilkaga ah shirkadda kale guud ee gawaarida keentay Bivouac sidaa darteed marka maadaama Saudi uu taageero aan leenahay oo qeybo kala duwan ay leeyihiin ayaa shirkadaas hadiyad nagu keentay si shirkadaas maxaan ku raadayay sheegayo ilaahay ha barakeeyo engineer Gelo joogo Istanbul Turkiga
ayaa yidhi waad u qalantiin in muqdisho aadan kugu socon baabuur cambada laamiga u dhow ee gaargaas taagan oo dadka waaweynka cajiibka ay qaadanayaan waayahay naga buusilaya barkeen marka waanu u qalanaa suudi waa u qalanaa sababtoo youtube-kii muqdisho ugu horeeyay oo arrimaha bulshada ka hadlaya marka laga tago fanaaniinta ayaan samaynay anigaas kula hadlaya ciwaankaas abuuray sameeyey markii xamar aan joogay dhowr sano ka hor marka xilligaas wax youtube ka jira sida Caruur Films iyo Balambaalis ka heesay ahaayeen dad kala duwan waan tacbana marka gaarigaas waxaan leeyahay dadka ka masiirsan oo hinaasaha nafta ka qaaday adeer yaalo iska quusta durdur way tabta balka ma qaban karo waayahay hal eray oo afkaada ka soo baxan rabaa inaan daba kaca waxaad tiri taageerayaasheena maalmaha waxaan arkaa dadweynaha idin daawado markii aan dib u fiiriyo commentigiina anigu waa idin daawadaaye commentiyaasha waxaan ku arkaa dadkii ka waaleen waxaan waali waaye fikraddan in dadka laga waalo adiga gulfaan miyaa iska leh mase agaasimaha bariga africa xasan toob ayaa iska leh waa maasantaha suudiyo horta runtii wax horta kawaalitaan la yidhaahdo kolley dadka si ay u garanayaan anaga waxaan naqaanaa wixii waalan in doctor xabiib la geeyo amba wax cilaajka la yidhaahdo meesha lagu xariimo baan naqaanaa anaga dad durmeeri dad caafimaad qabo oo tayo leh ayaa kasoo muuqda shirkadaas laakiin waa laga yaabaa muuqaalada amba heesaha aan dadka inta badan u adeegsano si fanaaniinta loo qorxiyo dresskii qaadanayaan ama uniformkii qaadanayaan way ka duwan yihiin marka loo fiiriyo fanaaniinta kale ee soomaalida dunyada joogto marka waxyaabaha aan noo gaarka ayaa saameynta siilayo oo ah in nalagu kasbeeyo inaan nahnay dad umada ka waalo waayahay horta bilxaqiiqa marka fiirida markii la dhaho dudur media hal abuurkeeda iyo fikradeeda intaba waxa 80% aniga iga yimaado 20 xasan toob iska loo aragtida ku leeyahay marka wax umad laga waala ma jirto qof walba caafimaad qabo shirkadaas yimaada ama la shaqeeya ama muuqaalka laga duubaa asoo caafimaad qabana waa tagaa marka kawaalitaan wax caafimaad qabo basabna wax waalana adeegaya meel keensanahay waaba waaya ma caafimaad ma la dhihi karaa fanaan baa dhar jeexjeexan u geliseen qashinkaad dhex geyseen fanaan ayaad dameer saarteen fanaan ayaad u geliseen nigis gabar ayaad suwaal u geliseen kuwaas maxaa lagu tilmaami karaa waxaasoo dhan waa hal abuur cajiib waa maskax caafimaad qabta ka timaaday waa wax aad loo fiican yahay wax in dadka laga bedelo annaga Soomaalidan waxaan rabnaa kaliya inaan meelaha qurxoon aan heeso kusoo duubno dhar dumarka inaan bacweyne qaado ninkan suud qaato oo qarshiis geliy waxaas waa adduunyada ka tagtay adduunyada fanaaniinta haweenka oo caanka ah ama Tanzania aadana ama dadka kale ee America sida Justin Bieber Canadianka ahaado muuqaalka uma baahna inuu milkiyo gurigiisa bankiska iskaga soo duubo ayuu muuqaalka duubaya marka annaga hal abuurkeena cajiibka ah in fanaanid horta inta badan hadda tii sheeg fanaaniinta kala xastooba iska lahay tii maxaan ku dhahay sheeg artist tii kale oo dameerka xana iska lahay marka waa hal abuurana jaxay waay waxayna ku najaxayna ku sheega wax cusub cajiib ah fanaankan uu ku bulaala sababtoo ah hadda fanaanka hadda suud iyo dharka quruxda badan ee dadka quruxda ay u aaminsan yihiin hadii loo geliyo oo la dhaheys oo meel qurux badan geena sida jasiiro ama Danilo ama beerta nabad meel dalxiis loo tago hadii la geeyo ninka ma qarxayo ma bulaalayo marka inuu bulaalana asiga waa rabaa oo horwaay in hadalhayn ay yeelto music video laga duubay waayahay marka dameer iska dhaafay xataa dhurwaa lagu fadhiisanaa soo hadalhayntaasi bulshada u qabsatay marka waa rag caafimaad qab soodi dhurwaay beel waayahay gulfaamow waxaa jira hartan colaadeed iyo guluf qaylo dhaan ah ee xagga hawada la isku marinayo YouTube-yada bilihii lasoo dhaafay aad ayaa weerar waxa ugu socday durdur media group waan arkayna in YouTube badan ay ka dhigteen mashaariic maalin kastana ay ciwaan ahaan u soo qaadanayeen laakiin maalmahan looma jeedo arrintaasi maxaa lagu xalliyay waa runta horta caqabado badan way iska jireen studio oo halganka amba challenge-ga nagaga dhaxeeyay dhalinyarada ku nool Soomaaliya qaasatan Muqdisho oo YouTube-leyda oo gibigood baa saaxiibadeen wada ah sida dabiiciga iska ah de kulle waxa la uu sigadoy maxay Soomaaliku ma maaday waa isnaacibta maaladii jiray iyo qabliyi xataa subaxii baarka waa taqaan baarka baaray jiro xamar joogo jira xataa naftigooda markii subax marka xijaab wata arka moogta ayaga xataa waa saruufayaan sida dadku marba hadii hal magaalo ay rabaan ka wada kulmeystaan aragtida lagu socday nidaamka lagu socdo inuu yahay hal sifo waxaa laga yaabaa caqabado in isku yimaadaan ay isku dhacaan sidaa darteed way ka soo gudubtay dibindaabyo badan xataa waa ka waraysaa
jabsigii ku dhacay December 7 sanadkii soo dhaafay la jabsaday YouTube-ka waxaasoo hardama waxay noo geysanayeen dad international community ma ahayn dad Soomaaliyeed saaxiibadan ahaayeen oo hanaanka u shaqeynay iyo sida bulshada loo macaamilayeen iyo magacaan bulaalay ayay ka yaaban marka cawlaadintaas iska wadeen laakiin darbigii soo taabteen sababtoo ah qofka markii wax laga qaban karo oo si kastoo loo hardameeyo oo ka dhiga fureysanaayo oo maxaan ku dhahaa hawshiisa iska sii wadanayo dadka way daalayaan ayay dadka hadana jira xataa hadana si gud waxaan qanaaco ku qaadanay dadka challenge oo dhaxmar oo YouTube-lada heer Muqdisho ugu badan majority inaan iscaafino isamaxno maxaa yeelay hal magaalo oo la wada joogo in lagu dagaalamo oo baalis fiiriyo muuqaalo YouTube khadal isku soo maray dadka qurbaha ku nool naftooda way caajisayaan waxay u fahmayaan hal abuurkeena waa anaga isku fiirjeesanay marka hadda arintaas wasaa sheegtay way dhamaatay laakiin haddii hadda xataa ugu fikiraya dad media qof inuu culaadiyo waxaan leeyahay tan tagtay waxba lagama qaban karo waayahay gulfaan adigu waxaa tahay aas-aasaha durdur media iyo fikrad curyaha durdur media iyo guddoomiyaha guud ee durdur media aad ayaan ugu faraxsannahay Kasuudi official ahaan inaan maanta kugu helno fursadan wareysiga ah waa farxad weyn iyo guul noo soo hoyata anagaba Kasuudi official ahaan iyo asxaabta ku xiran Suudi official mar aan dheereen ayaan wareysi caynkan oo kala ah waxaan la yeeshay agaasimaha bariga Afrika Xasan Toob laakiin kan waa ka xasaanad weyn yahay maadaama guddoomiyihii guud aan maanta Jaanis ku helnay maalintaasna aan Jaanis ku weynay su'aasha aniga iga dhex buuxaysaa waxay tahay durdur media waxaan ku baranay barnaamijyo ku qotoma 99.9 arrimaha bulshada haba u badnaatay dhanka fanka iyo madadaalada hadafkeeda guud bal aniga iyo dadka ku xiran Suudi official nooqayax iyo waxyaabaha cusub ay soo wado عجيب سؤال عجيب والله سؤال dadku taxan waxaan leeyahay hal soo dhawaado Suudi durdur media waa mataano hawsh maamulayo waa wadankan aan joogo bay Paris Suudi ay joogtaa ay xarunteedu weyn ku leedahay dadka durdur media ku taxan oo muuqaalkan aniga codkii marqaati ka noqon doono waxaan marka hore faraya inay subscribe gareeyaan shirkaddan Suudi official maadaama uu yahay xubin ka tirsan durdur media laakiin partner la ah xarunta weyn ee Muqdisho سؤال عجيب إن رنتي وكمان نقي وسؤال واللي رنتي حساسنا هدي أن في العلمتي ذا أنقلوا واسح نظام والبقى الأساس هاي يولا لقلي هاي أبها شركة قاعدة بريف ذا هاتو وكوميونيكيشن بين سامدها هاتو ميديا عادية يوتيوب كان رنتي مركز أساسي 2016 كان قياسها يعني هاد والمقدشان كو أساسها يعني سعيد حسن توب يركلوا هاد مدحونا صحافة الله تركي جوج يركلوا قدر الله أفق فاين ملك كفاية وذا جوجني مركز قفل بنا وربعين تقولوا كشقينا لكن جيبين وحنا من الساعة ور يوتيوب كان أنت بدل ما دام مقدشوا سومالي بكويرت يوتيوب أنا بلشوا واليوتيوب أنا بلشوا على سمينه يقولوا هو إنه حقوق هاي إن بلشة هذا اللي أو تارنتي اللي أو فنانين إلا صاروا sida darteed inta aan shirkadaas maxaan ku dhahay howlaheeda aan ku guda jirno fanaaniin ka tirad badan oo Soomaaliyeed ee Muqdisho ka soo baxay qaarkoodna horeyba caan u ahaayeen laakiin finally meesha ugu dambeysay arrin garno waxay tahay in maxaan ku iraahdaa production ka awadno oo ah YouTube-ka in camera la qaato oo qof isku sawiro ama video qof laga dubo waxay aad wax qariib oo cajiib ah ka hor inta ku soo bir media laakiin maanta marka Muqdisho aad tagto oo beerta nabadda aad tagto meelaha kale isku yimaado aad tagto waxaad arkaysaa cunug kasta camera la ordaya ay xagee waa adiga aniga YouTube leeyahay kama soo gashay ila YouTube iska bacdi moogta qofka isku soo biiray sax wala ma kala xigo wixii camera maanta magaalada yaacayo hal abuurkooda marka arko anigana qofkii ugu horeeyay oo ku dhiiray arrimo bulshooyintii aadan u farxaa in maskaxdayda inta najaxdo oo waxa soo arday maanta Muqdisho ka soo baxay qaarkoodna ay yihiin dad celebrity laakiin finally intay durdur media sida durdur media maadaama hadda ay tahay YouTube wax soo saaro oo magacaas qarxay waxaan rabnaa isla magacaas rabnaa inaan company ku asaasno oo ama soo sameeyo dharka iyo waxyaabaha kale ee bulshada marka waa hadaf dheer sida Hormuud Telecom ay shirkado kala duwan kaga baxeen durdur media insha Allah mustaqbalka dhow waxaan jecelnahay Suudi oo adina barqaati ka noqon doonta inay ahaato shirkad lagu najaxo aan ku koobnayn kaliya in YouTube muuqaal laga sameeyo dad la soo saaro laakiin ay naqaso in dress
iyo hadday yihiin howlo caafimaad iyo howlo kala duwan. hadda Durdur Media waxay bilowday aad ogtahay shirkadda macnaheed iyadoo kaashanaysa oo Mr. Gelle oo madaxda ka yahay in gawaari Muqdisho la keeno oo qofka nooc raba ahaado ama BMW ha ahaado oo tramka laga sameeyo ahaado ama Peugeot ha shirkaddan Peugeot leedahay Faransiiska gawaari samaysa ahaato gawaari walba adduunka yoolo ama Ferrari ha Talyaanka ay sameeyaan Muqdisho waa la keenayaa. fadlan xalala xiriiraan contactiga number Gelle cidii u baahan Durdur Media la soo Saudi official la soo xiriirto waa la siinayaa si gawaari walba ee dalbadan Muqdisho loogu keeno. marka hadda waxaan marinaa inaan gawaari Muqdisho aan geeyo shalay waxaan joognaa inaan muuqaal dubno mustaqbalka dhowna waxaan rabnaa daawada iyo bagaasha ganacsi guud ee Soomaaliya ka sameeyna annaga oo aan ku kalsoon shacabka Soomaaliyeed inayna garab istaagi doono sidii hadda noo garab taagay engineer Saudiyo. aad iyo aad u mahadsan tahay Gulfan su-aasha ugu dambaysa ayaa waxay tahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin magaca Gulfan markay maqlaan haddaba Durdur Media hore uga soo dhacdo dhanka kale ummadda Soomaaliyeed markii la dhaho magacaada iyo muuqaalkaada magacaada ku weyn maxay tahay sababta ka dambaysa ama sababta aad yacni kugu dhalisay adigoo muuqaalkaada la arag inaad muuqaalkaada Soomaali weyn meel kasta ay joogaan aad ka gado? waa maasantaa Saudiyo dad inta badan way weydiiyeen qaarkoodna xataa waraysi kala duwan oo YouTube-lada Soomaaliyeed aan siiyey markaad YouTube-ka jabsanay ahayd aad ay weydiiyeen su-aasha ah muuqaalkaada uu kooban yahay oo sida hadda muuqato aniga adigaba mar hadda xanaan silmeed dhow mar ka soo muuqdo Durdur Media naftigeeda waa ka soo muuqan jiray bilowga hore soo waraysigii daad aniga ahaa jiray laakiin waxa macnahaas joogtada u sababay inta badanba adoo heli karo oo jooga wadan maxaan ku dhahay bariiciisa wanaagsan oo muuqaal soo duubi karo maxay tahay maqal runtii waa waxaan ii gaaray iyo arrimaha hadda igu qotoma ii gaar privacy-gaas iyo waxyaabaha hadda inta badan howlaha adduunyada iyo waxyaabaha hadda himilooyinkayga ayaan saamixin waqtigan in camera soo hor fadhiisto laakiin waan soo hor fadhiisan jiray mustaqbalkan waa jecel lahay shirkadda hadda Saudi official inaan ka soo muuqdo aan muuqaal daawo marka dad kala duwan hadda meelo kala duwan hadda Paris hadda maxaan ku dhahay geeska joogto aad ula nooshahay dad kala duwan oo saaxiibadeeda arko oo ayagoo saas hadal hayo oo aan garanaynin oo iska fadhiistaa jirto si guud hadda marka wacyiga lagu jiro iyo Soomaalida qiiga marka fiirino qofka inuu noqdo qof caan oo celebrity ay bulshada taqaan waxa ka fiican inuu isku aado maskiin umada isku dhex jiro sidaa darteed aniga magacayga waa qaracsan yahay sidoo wada Saudi official uu qaracsan yahay laakiin insha Allah sida hadda wajiga dadka oo arkayaan way arki doonaan dawlad iraado waliba shirkaddan Saudi official ayaan rabnaa inaan dhabar adeegno aan kala kicino waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliya way joogto qaadadan dalkan Faransa YouTube-ka ay haystaan oo arrimo bulshada ka hadlo waa engineer Saudi oo haddii tahay xalfado iyo haddii tahay waxyaabo ka badan ba kulli ii sheegan oo qaban doono waxaan leeyahay subscribe dhac magaalo kasta YouTube-ka jooga lagu leeyahay heer Germany qofka Germany jooga YouTube-ka u heliyaan heer Swedish taasoo kale heer Muqdisho taasoo kale Faransiiska ama baaqi waxa ku sugan Saudi oo ah nin inta badan fanaaniinta iyo dadka celebrity uriyaasha ay yaqaano waa in maskaxdiisa caafimaad ka qabta iyo shirkadda laga faa'iideysta waxaan ku talinayaa heer Paris in shirkaddan Saudi ay cirki geen ayaga marka hore waxa naga dhigay marka xamar joogne haddana Saudi official iyaga wax ka dhigi karo waxaan u rajeynayaa in subscribe-ka like iyo inay xoqaan share gareeyaan meel barnaamijkan barnaamij inta ku kulmi doono waraysigan iyo waqtigaasna waa kaga mahadnaqayaa gudaha shacabka ugu taxan iyo si guud Soomaaliya waxaan leeyahay meel baa joogteen dhanka wanaagga media loo adeegsado xumaanta laga fakado assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waa tahay aad iyo aad u mahadsan yahay waan uga mahad celinaynaa waqtiga oo noo horay gudoomiyaha Durdur Media Maxamed Muuse Gulfan ayuu ahay kaasi oo waraysigan gaarka siinayay Saudi official